dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Somaliland waa mid ka ugu ballaaran baaxadda dhulka waxa uu leeyahay buuro bannaano iyo bad intaba isla markaana korkiisa iyo hoostiisaba waxa laga helaa khayraad dihin oo aan tiro lahayn waa gobolka Sanaag waxaana halkan sidoo kale lagu tilmaamaa inuu yahay gobolkii awoowayaasha maxaa yeelay waxa halkan ka dhisan qabriyada odayaashii ay ka soo tafiirmeen shacabka Somaliland iyo Soomaalida dalalka kale ee Geeska Afrika haddii aan si gaar ah u soo qaato magaalada Maydh halkan waxay ahayd magaalo qadiimi ah oo fac weyn waxaana ay 100 kiiloomitir wax ka yar u jirtaa caasimadda gobolka ee magaalada Cerigabo Maydh ayaa caan ku ah dhanka kalluumaysiga iyadoo halkan mararka qaarkood laga dhoofiyo khayraadka dabiiciga ah ee dadka deegaanku ka helaan dhulkooda waxaana iyadoo taasi laga duulayo xukuumadda Somaliland ee haatan haysa talada dalku ay magaalada Maydh ka dhistay dekadii ugu casrisanayd ee dhanka kalluunka taas oo ay ku baxeen malaayiin dollarka Mareykanka ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo xoogga lagu saarayo qorshaha horumarinta qaranka ayaa halkan oo ah Maydh ka dhigay mid dadkii ay dib ugu soo laabteen shaqo abuur laga helay isla markaana sidoo kale laga dhoofiyo lagana soo dejiyo alaabada kala duwan ee aan ka ahayn kalluunka kumanaan kun oo qof oo ku kala nool gobolada Sool Sanaag iyo Togdheer ayaa ka faa'iideysanaya mashruuca dekadda Maydh taas oo dharar ahaan hore u gashay badda 165 mitir waxaana sidoo kale dhismaha dekadani lagu kabay adeegyo kalluumaysatada u fudaydiya sidii ay u kalluumaysan lahaayeen sida qalabka lagu kalluumaysto qaboojiyayaal ilaaliya badqabka kalluunka tababaro iyo shaqo abuur intaba